عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دبادة جانال كان maanta su'aalaha meeshaan noo taalo cunug 5 jir waxbarashadii markuu bilaabay kadib ayaa waxaa dhacday markuu xaafada imaado inuu isku kaadiyo asoona ka ahayn ka fakan sida hooyada ay dareemayso inay ka fakan oo ka soo yaala camal marka hooyada qaylo way ka dhamaatay nadiifi waxa dhan wili wax u shaqeynaa ma laha marka cunuga marka ku aragtiin isbedel inaa ku imaaday intaan qaylo horta ka horgey lahayn waa inaa baarnaa ugu yaraan 4 shay 4 kaasoo shay waxaan dabeecad ma u lahaa jira waa maya sooma maxaa isbedelay noloshiisi maxaa isbedel oo ku imaaday sida hadda cunugan camal waxaa ka qaadan karnaa xaafadu joogi jira hooyo hoosteeda ku jira hooyo haysi jirta hadda waa la wada goob waxbarasho la geeyay ciyaal tiro badan dad garanaynin ayaa loo dhaxgeeyay stress ku dhici kara cunuga hooyo xaafadii caruurtii markay imaadaan waxaa laga yaabaa in iska mashquulsan tahay oo maanta oo dhan daalneed shaqo badan qabanaysi in cunugan waqti asiinin sidaas darteed waxaa laga yaabaa inuu isdhaa hooyo si ku soo jeedisa hooyo u baahan tahay saa ku soo jeedisa marka guriga dhaxis ku kaadiyo hooyo soo jeesanaysa ama qaylo ku soo jeeso ama wanaag ku soo jeeso labada caruurta isku mid hadaa marba u soo jeesato oo helaan attention-kaada ay helaanba number 3 waxaa kaloo baarayna number 3 oo rabna in cunuga isbedel markaa ku aran inaan fiirino cunuga xanuun ma ku soo kordhay caafimaadkiisi soo yahay number 5 number 4 numberka 4 waxaan fiirinaynaa wax ad cunugan ka moodo laakiin sidaadaba cunugaada isbedel ku arag waxaan wax oo sanadkan uu gaaray oo isbedel sanad ahaan uu ka bixi doono miya uu u baahan yahay caawinaad badan cunugu markuu sanad kala galaa mid kala galaa isbedel in lagu arkaa laga waana ka gudbaya jas caawinaadkan loo baahan yahay in intuu markaas waqtigaas ku jiro in la caawiyo oo wuxuu u baahan yahay loo dejiyo oo laga sii waalan waa ogahay ilmaha edbiskooda inuu dhibadin asaga kaligiis stress yahay laakiin mar walba waxa u baahanahay video kasta aan ku soo sheegay in anaka waxaan nahnay dadkii wax edbinay inta edbisa u gudbin marka hore adiga iska soo shaqeey soo deji sida hadda gabadhan haysata camal iskuulka laga imaado ama meesha waxbarashada laga imaado guriga loo buuxiyo waxa laga yaabaa guriga maanta dhan ka shaqeynaysa maxaa dhaca marka dhiigaaga soo karkara sooma intii marka cunugaas u jeesan lahayd waxaan ku sheegay inta cunuga u jeesan marka horos anaka isdejinay marka hore aad isdeji biyo qawcab wax abuucab marka adoo degan cunugaas u tag weydii maxaa uu kaadinaysa guriga meel uu kaadiyaa jirta su'aasha weyd waa ogahay dad qaar wax isla carruurta iska yaryariin 2 jir 3 jir 4 jir wila way yaryari laakiin markasta ilmaha su'aasha la weydiiyo maskaxdooda way korinaysaa waxayna u diyaarinaysaa hadal fiican in cunugan ku hadlo oo fikradiisa uu dhiibto mar walba ilmaha su'aasha la weydiiyo fiicanta waxaa kaloo dhihi kartaa hooyo waa ogahay waan ka mashquulsanahay laakiin marka ani ii baahato ama hab inaan ku sii arabtid ama inaan kula hadla arabtid qasab ma inaan guri ku kaadisid adoo guri ku kaadin ayaa ila hadli kartaa ay dhihi kartaa hooyo ani adaa ku baahana marka saa ilaahidna waqtigaada ku siina waa ogahay Soomaali waxaas ma sameeyso Soomaaliya anahnina ay dhiiq dad qaar dhahay laakiin ilmaha kasto meesha joogan waa isku mid annaka sa ulo dhaqano
ayaa wax bedeli karo, wax weyn bedeli. Waa wax dhib badan, wax sahlan ma aha. waa la socdaa, way iska dhib badan tahay. marmar maxaa kaa qaldan, su-aalo badan adaaba isweydiinaya, war maxaa qaldan ilmahaada xiisaan u yihin. laakiin caruur meesha joogto waa iska caruur, markasta qallaadkoodu iska badan yahay. anaka saa ula dhaqano ayaa wax isbedel ah ku imaaneyna. haddii anakaa isdejino, anakoo degan, maskaxdeena degan tahay, ilmihii aadbino, waxaa noo soo baxaya caruur degan, guri degan. taasna waa taa janalkan furna. subscribe garee, share garee. waxaa su-aal qabtiin insha allah nala soo xiriir. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.